Bismillaahi Raxmaani Raxiim waa lama arkaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo adduunyada ay ka joogtaan dhammaantiin waxaan halkan maanta uga digayaa shirqoole dil ah oo loo maleegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dilkaasi la qorsheeyay in 2 bilood oo ku dhaca 15 bishan oo ka bilaabanaysa maalinka Arbacada ilaa Abriil 15keeda waa la sameeyey qaabkii loo dili lahaa oo 3 geesood ah waxaase dhacday in ay sugayaan intaa jaansigii ay ku dili lahaayeen waxaan rabaa marka inaan ugu digo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed sirdoonka Soomaaliya oo ay ku jiraan kooxo nabadiid ahaayo nabadiidka ka yimid oo la shaqeeya nabadiidka weli iyo koox kalento oo sirdoonka Itoobiya ah saddexda geesoodkaas ayaa shirkaas sameeyay kooxda dumaljadiid oo weli madaxdeeda salka isku xiran oo laamaha amniga lug ku leh waxaa la qorsheeyay 3 nooc in lagu qaarajiyo in baabuurka miino lagu xiro in madaxtooyada dhexdeeda miino lagu xiro ama wadada ka soo baxda waxaa kaloo la qorsheeyay niman tuuta military ah qabo oo hub wato inay jaansigaas hadday helaan yarka helaan inay iyagana ku xabadayaan oo xabad lagugu dilo saddexdaas ayaan la eeganayaa oo fursadood waana la qorsheeyay marka waxaa saddexdan loogu talagalay in adiga lagugu qaarajiyo 2 bilood inta jaansiga laga helaya sidiiba marka xil wareejinta ay jirto dad badan ay ku imaanayaan xilliga dadka furaha badan ay ku imaan doonaan ra'iisul wasaaraha aad xulan doonto oo la taliyaal fura badan iyo dad badan iyo odayaasha iyo baarlamaanka iyo dad badan aad tashi la sameynayso xilliyadaasi tashinka aan jirin adigana lagu arkayo nin ixtiraamaya shacabka iyo dadka inay ku yimaadaan ma aragtay ayaa jira waxaan rabaa marka shaqolkaas xataa qaar aaladaha wax basaasa sida baabuurtii hore ee madaxtooyada ku xireed ay wataan oo qaar xataa Unisom ay kala shaqeynaysa qaarkood oo waayo waxaa Unisom xataa ciidankeeda aadiiday ayaa xataa luqu leh waxaad marka kaga badbaadi kartaa 3 qaybood hadaa taladeeda yeesho number 1 in aad dalbato baabuur 4 ilaa 5 ah oo escalator-ka loo yaqaan xabadaha aan karin oo aan taarga lahayn 4taasna ama 3daasna aad soo dejiso midowgiga lagu keeno sida aad u dalban karta adigay ku taala ha isticmaalin baabuurtii hore ee madaxtooyada ku jirtay xilka kula wareegayso waxaan kalantoon kula talinayaa madaxtooyada waa in aad codsataa marka aad la wareegayso in Unisom ka caawiyaan oo qalabkii lagu baaro miinooyinkii waxaas eedii wax urinaysana ay keenaan waxaan kula talin lahaa xataa alaabta taalo oo dhan banaanka ku tuur hal xabaha ka isticmaalin dhammaantood banaanka ha loo tarash gareeyo darbiyada iyo mugga dhan ee madaxtooyada dhul iyo badba in dhammaantood la baaro ayaan kula talinayaa waxaa kaloo jiro oo iyagana lala isticmaalayaa shaqaalihii hore ciidamada waxaa la isticmaalayaa tuuto ciidamada ka mid ah oo la xiranayo militariga iskaga ka imaan jiray booliiska ama qolada nisa ha aaminin waxaad aamintaa oo kaliya oo daacad ku ah gaashaan darawallo cusub qaado oo gaashaan ka mid ah ha isticmaalin darawaladii oo kalento waxaa labada bilood oo kale aan ka codsanayaa bullet proof inaad xirato oo qasban tahay 4 gaari ee kala nooca ahi mid haddii miinada jidka la dhiga xataa miduu yahay yaan la ogaanin waa in gaashaan ay wadataa nin miina baara oo wato saacadii mar walba gaariga gelin ilaa ha u sheegin gaariga aad gelayso 3 midka aad gelayso xataa shaqaalahaada iyo security-gaada ha u sheegin ilaa aad ka magacaabayso waxaha amniga oo 2 bilood la dhaafayo waxaha amniga aad ka magacaabayso masrakiilo lagu kalsoon yahay aad ka magacaabayso meeshana waa miinaysan tahay waa la isku xiran yahay waxa isku xiran sirdoonka Soomaaliya iyo nabadiidka iyo qoladii dumaljadiid iyo sirdoonka Itoobiya waxaan kula talinayaa
sidii salfa kadir inaad samayso adiga oo Ethiopia ay joogin baadiyun ra'iisul wasaare ka ahayd Muqdisho waad ogeydeen nabadeeda iyo sida aad yeelayseen cid laga cabsi qaba ma laha nimanka Tigray baa la yiraahdaa inta ay dhulkaada nabad ku jiraan ama aad ku soo dhow yihiin ayay nabadi ku jirtaa maalinkii ka fogyiin oo iska moostana maalinkaas nabad ku jirtaa salfa kir sidoo yeelay madaxweynihii South Sudan oo kaleeto nimankani jaale madaxweyne mooshin u gee baarlamaanka hal nin dhaafiyo Ethiopia oo dhan ka faa'iideyso awoodda shacabka aad leedahay awoodda shacabka taangiyadii Turkiga ayay isu dhigayeen cid ay kaga eebeysanayaan ma jiraan waxay Ethiopia ka qaadi kartana ma laha sida ugu dhaqsaha badan mooshin u gee baarlamaanka aad leedahay hanana dhaafiyo Ethiopia ciidankeedii iyadaba baarlamaanka ku dhawaaqo waan dhaafinaya wax ay idinka qaadi kartaan ma jiraan shacabka Soomaaliyeed baa gurab taagan baarlamaanka Soomaaliyeed baa maanta ku gurab taagan waxaan kula digayaa mar kaleento jaale madaxweyne nimanka cutubka ee ku waardiyeenayo ee gaashaan ah isku day xataa in labada bilood iyaga ay ku joogan oo kuwa isbedelkoodii iyo controlkoodii ilaa aad ka helaysa sargaal ku controlo oo iyagana tashkiiliya oo wadaniyada bara waxa ay tahay ballanqaadyana u sameeyo inay weliga ahaanayaan ma aragtay ilaaladaada khaaska ah ma aragtay mushaar fiicanna aad u ballanqaado waxa weeye way miinaysan tahay meeshan ya nin kasta oo qaa'in watan nin kasta oo tuug aba xamarka buuxo nin kasta oo shisheeye kalba ka buuxo oo cid kasta oo Soomaaliya leh waxaan kula talinayaa jaale madaxweyne hadii taladeeda aad diido labada bilood waad ku tagaysaa shirqoolkan ee diyaariyeen waa lama arkaan waa wax aan ku sheegayo oo dhab ah oo guarantee ah waxa isticmaaleen baabuurtii oo madaxweynihii hore isticmaalaya aaladaha ku xiran waa la socdaa dhaqdhaqaaqooda meel aadayaan sida ugu dhaqsaha badan week inta aadan bixin oo aad shaqo week in lagu keeno 5 escalator oo kuwa xabada aan karin isku day adigana labada bilood isku day anti bullet breath inaad isticmaasho waxaan ku sheegayaa ciidamada militariga ciidamada UNISOM iska ka imaanaya ha aaminin ciidamada gaashaan ee aad haysatay kaliya halka cutub xataa oo ogolaanin in cutubyada xataa ay kala bedesho labada bilood hadii awood u leeyihiin ha kula joogaano ayaan kula talinaya waxaanse kula yahay mar kaleento isku aan hamiga ummadda Soomaaliyeed ka leedahay uu fail garoobaya hadii aad sameeynin madax constitutionkii maxkamadda ugu sarreysay oo ka badbaad sharcigan ugu sarreysan oo ka badbaadinaysa cadawga Soomaaliyeed ee la isticmaalayo labada baarlamaan oo halka loo sameeyay in lagu cuno qofka wadaniga ee soo baxa adoo kale inta loogu talagalay hadii aad sameeynin constitution kaasna waa tagaysa halkaas samee waxaan kolon kula talinayaa ninka militariga ee dharka xiranayo PhD-ga ee caalimka ah ee taqiga ah ee hanti aan taabinin ra'iisul wasaare ka dhig ee ah ninka la yiraahdo baadiyo waad raagaysaa waana joogaysaa hamiga ummadda Soomaaliyeed way u hurgalaysaa ee shacabka Soomaaliyeed qof aan baadiyo oo ha isku dayin jaale madaxweyne hadii aad isku daydo waxaan ku sheegay inaad mar habaabi doono talaabada ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta ay fiirinayso waa talaabada ra'iisul wasaaraha aad ku magacaabayso weeye waxaan kaloo halkan kaala talinayaa jaale madaxweyne in nimanka amniga aad ka taxadirto oo shirqool ay sameynayaan cid nimanka sida aan wadada aan ku sameeyay hadii aad yeeli weydo waxaan ku sheegayaa jaale madaxweyne inay dhici doonaan waa lama arkaan inta ka badan ma sii wadi karo anigana wanis dhiga lagu sameeyay xil wareejinta ayaan ka tagayaa xilka internet oo dhan codkaygana la maqleynin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay nabad ilaahay inoo badbaadiyo madaxweynaheena dhamaanteen ummadda Soomaaliyeed Allah ha badbaadiyo jaale madaxweyne mooshinka Ethiopia laga saarayo dalka baarlamaanka hor dhig Ethiopia inta ay ka maqantay nimanka Tigray baa la yiraahdaa inta ay ka fog yihiin baa nabadgelyo ku jirtaa salka ninka dhijira salfa kir oo madaxweynaha Suudaan كم محمد أديك ما أنت لب أبودود بهيستها برلمانك إيه شعبك وحو إثيوبيا كقاضي كرنا مجران إذا إثيوبيا جوجن صوماليا مركاتبات إيجا إهد أدا رئيس وزراء كأها وأوغندا ومركز صوماليا قلب سدوا وحلقي شريفكي أديك هذا هذن وح أمد الصوماليات هدي هالن أو إثيوبيا أدلك صومالي وكسوجينه والله إنه سوى حبك ويرجلين وأنا فايل بعد نقطن تنتهى هدي أنا مطلع دايلين كلام مدحوين أمني قاعدين إلى الصو وكود دقي وحال لقرشية لبضع بلاد دل كاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.